waxaan maanta ka hadlaynaa burukito afka qalaad loo yaqaan pneumonia. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Magacaygu waa Dr. Saal Maxamed Cilmi. Waxaan dhakhtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca carruurta. Waxaana ka howlgalaa isbitaalka Somali Sudanese Specialist Hospital. Waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno cudur la yiraahdo burukito afka qalaad loo yaqaan pneumonia. Pneumonia waa cudur ku dhaca sanbabaha iyo wixii hoos imaado sida alveolaha. Pneumonia waxaa sababta laba waxyaabood: infection kaas oo ah virus, bacteria ama fungal infection. Sidoo kale waxaa sababo aspiration wax loo yaqaano oo aan Soomaali ahaan lagu dhaho inuu qofka cunto ku saxdo ama qofka inuu ku saxdo liquid wax dareere ah. Pneumonia-da inta badan calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah qandho, qufac, lalabo iyo matag, qarqaryo, muruqaha qofka daal uu ka dareemo, qofka markuu neefsanayo xanuun uu ka dareemo feeraha ah. Inta badan pneumonia waxaa lagu qaldaa family waalidiinta ay ku qaldaan hergebka caadiga ah oo calaamadaha aan sheegnay asna uu leeyahay. Hooyo iyo aab, fadlan haddii aad isku aragtaa ama cunugaaga aad ku aragtaa calaamadahan aan soo sheegnay, xarunta kugu dhow ee caafimaadka si dhaqsi badan oo la gaar si loola tacaalo.